Hang on to your seats. Everything is about to change. waa Ramlal waa madaxa dambe baarista kama helo gawaarida dawladda inuu raaco run ahaantii wuu iskala weyn yahay sida shacabkii oo kaleente inuu u dhaqmo ayuu mar walba jecel yahay mar walbana wuxuu dantiisa ka hormariyaa danta dadweynaha wuxuuna jecel yahay mar walba cadaalad iyo sinaan in lagu dhaqmo xafiiska warbaahintiisu halkan maaha soo dhawaa waa xagga halkan nagala socotaan waa TV-ga iftin maanta waxaan wareysanaynaa madaxa dambe baarista soo dhawow ayaan ku leenahay waa dhabahay waan idin salaamay dhamaan waa kaa qaadna wixii warbixin oo noo haayeen asaga ayaa noo sheegay meeshaan ayaan ka cadeynay wuxuu damacsan yahay iyo wuxuu wado hay soo dhawaw bal runtii marka hore waxaan salaamayaa shacabka India marka labaadna waxaan salaamayaa burcadda magaalada ee gashatay shaarka ganacsatada waxaan idin leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan isku soo dhiiba maxaa yeelay kani waa feelkii dambiilaha ee dambiyadiisa cadeynayay hadduu naga fiirsanayo dhalada iyo haddii kaleba waan u jeednaa dambiyadiisa inay halkan ku cad yihiin feelkanne waxaa ku qoran ganacsadaha ugu weyn ee dalka India dambiyadiisa oo idil halkan ayayna ku qoran yihiin mudana ma hubtaa inuu asiga feelkan leeyahay sideed u hadlaysaa adiga ma waxay kula tahay anigoo nin weyn ah inaan been warbaahinta la soo hor fariisanayo ama feelal aan jirin aan dadka horkeeni karo ma kula tahay adiga okay waxaad adiga ninkan wuxuu noo cadeeyay ilaa haddeertan waxaan ku cadeeyay ma jiraan wax walba feelkan ayay nooga cadeyn doonaan waad arki doontaan idinkana sheekada meesha u dhici doonta iyo waxaan qaban doono intaba waad arki doontaan waan ognahay dambiilahaas asigana wuu la socdaa in aan ku raad joogno waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu dambi baarista isku soo dhiibo hadduusan isku soo dhiibinne wuxuu arki doonaa waxyaabo aan caadi ahayn waana amarkayga ugu dambeeyay sida ugu dhaqsiyaha badan waa inuu isku soo dhiibaa waana idin salaamay haddeertaan waa inaad shaqadiina qabsataan weliba sida ugu dhaqsiyaha badan
magacayga oo buuxo waa krishna waxaan ahay askari waxaan la jeclahay mar waliba dalkayga iyo dadkayga inaan difaaco inta dhibicdayga jirkayga ay ku jirtana lagama yaabo in dalkayga cadow uu ku soo duulo cadowga dalkayga ku soo wadahana waxaan diyaar ula ahay in aan si wuxuushnimo aan u dilo si mar dambe ay cadowga dalkeena ay u soo wajahin حيتها والد انا ديلتني انا ما كنت على انا قدرت النواهني هذا وانا انا كافكانك ما كنت على انا فري فرنك نكا يعني I love you انا كنت على كبر انا وقت تسالك انا قلبي لك نكا يعني نجاجيا نكا انا ما كنت على لا كاري ما حكوك في الهندية تنا شركان كنورسهاي أنا كجعل مكتي ها ساسوايا كنا شركان دي عودي كسان واجلاني سبحان قرحي كفاية كوكريها وابي ناراتي شقلكم شغل سنتي سامح كايهين ودقي أنا قلبي أكو هايا مركز تنواق تاجر سنة مكتي أنا لا خيلا ما قد يجلس بوايا حبيبي I love you واكو جعلي واكو نروي الصبح واناك اكو حشرنا ايمان لحبي صارت كارا I love you love you نكاي dhegeyso waxaan ku weydiinaa joornaalka intuu yaalaa odagay wax kasta diyaar waay agtay imaan waa ku dhahay ya war badanaa tan yaaqay ma ku fahmin aniga haddaan soo degaa laakiin kaalehe sida burka isku rafaaqayna aan ku rafaaqe ولا شيء ما حكمتي كالي ولكن ويلكا امهاكو قرنا كده فيري امس نكاي وشيء امس ها امس haye itusbar joornaalka master krishna oo howlgalku guulaystaye intan asigoo show dhigaayo maxay tahay waxaan barnaamijkan yaa iska dambeey mii sheegi kartaa aniga le waay iska fiiri aniga le haddana iska fiiri le tufahmi cunaa nafaqada hadduu soo noqotee ho naya maxaa ka fiirina oligay ma keesh saxan ku dheh maxaad ku hadlaysaa adiga wiilkaaga sidaana raalli oga tahay soomaa waa kana waab yimid istaag guryaa haya kaale ii soo dhowow aniga ii soo dhow ayaan ku dhahay haa waayahay aabe haye surwaal jeemis oo yarna waa la soo gashtay haye maxay tahay filinkan ii sheeg shabadna waa isku soo sabirtay maxay tahay filinkaaga waaba sii fogaatay hooyaday weydii haa hooyale kala hadal ya beela ninkay qajac wiilkay guulayso hooyadaana waxay leedahay ayada weydii adigana waxaad leedahay hooyaday weydii nin weyn ayaa tahay ma hooyadaa baa micnaha dembi walba dusha ka saaraysaa waxaas joornaalka fiiri waxa ku qoran hooyada la weydii adig ya wax kasti anaa ka dambeeya kaale labadiina aniga maaragtay inaa madaxa iga cuntiin ii sheeg bal adiga askari kale ma jira miyaa magaalada aydu qawaali ma bilaa haddaad filinkaas ka bixi weysid hooyo la waano wiilkay wariga tag waad bi waasheen labadiine iska jiraan ku dhahay igaarkii haddii indha ku fiiri sidaan ku dhahay indhaha kaala baxaan ku dhahay waa ku bajiijiyahan ku dhahay shaqaa kaa qabaa igaarkeena ma fiiri ka sidaan ku dhahay kastaa ku dhahay waa ku jeclaa kaaga darta miyaa waa lagaa shaqayha mehe dhaxda waa lagu cabaa waa lagu kala cadahan ku dhahay ilab yeelaan ku dhahay ilabsaa kugu yare haye waa idinka sii tegey adigaan ku dhahay shaqaa laga qabaa kaale ninke walaalkay raaliha hayridin maxaa kugu dhacay hayridin tartiib ma arkina firi wiilkaygii wax walbo adiga iyo hooyadaa dartiinay dhaxdaa lagu gashaa tanna shaqaalihiina way igu sii darsoontay bes waay aniga wadna xanuun inaa u dhintaanba ka baqaa bes waay inta burcad ilaalinaya idinkaaba dhibaato iigu filanbo yesaan ka rabnaa kudhac may maqlaysaa adiga
booliska maalmahan dad cusub inay tababaraan dhalinyaro inay isku keeneen baa la ii sheegay idinkana waxaan idinka doonayaa magaalada inaad ku fidaan aad mid mid u fiirisaan howlahoodana aad la socotaan amar sidii wuxuu jiranay ragga waa isoo dooneen ها معناها بوليس عصب موقتها إن لقرأ للديوان قليل مهم aniga wada bara wala socda laakiin waa isoo dooneen waa yareen macnaha waxaan u baahanahay inay حتى أساس على الموجود ما هذه لكن حريفة تاي waan arkaa waan u dhashay وكوز قبنا جاي استاج laba لابا okay qayrtii dhigeysta howshin waa soo dhamaad laakiin howl kale ayaan dhimo howsha in tribigan laga boodo يا ninkii tribigan ka boodo waa hadda iska jiro finish ayuu waan idin sheegay hadaba yaanan tacday wax laga tribigan in laga boodo si uu dhaqsiya badan halis diyaariya marka tribigan in laga boodo halis diyaariya saacada halis diyaariya idinka hadii kale finish atiin صاحبه كالبل وحاول شيء دربي أنا لقبود هاي هني وما نوجه مرتد أديك كان أو يريش كان ها هذا قبلت هرمت هاي أنجلي قل إيه خوي واحد يسري ودوفا يديمو دت كنا سانا ودوغا با ما يا أبو ساندا ما ودرت سانكا يخريا يا مالها ما هنشيل هدرتان ويودار سنتين بستو هداي واسوال بالسي حد ما حق ودعي boodo la waraadi صعه يس هذا نيتوسان كودا نيو فير بجيكي شان ولا قدرنيا كودا جدي ما لوفر لي يا سوى انكم حسمي اكشن ليلي مروي وحي قبرت براو ترى انا عيني تسويا منا ana wiinka sidii meesha ku koray يا اوطنا بوف كده على وين ماشان قبرة الوجوه كودا اسكفول صاحبي سوى وحي محاسب يا صاحب ايشك waxaan ka rabaa inaad taliyaha iga mashquulisid dadkan burburin mudane haye kawali waa ka istij adiga maxaa oo ku daran baryaaya soo ma jeclid meeshaas waa dheertaa aniga dumar ayaan ahay kama kori oo karo saas maylada dhimala tii dheerta waa ka boodaysaa haween maahan adiga wax loo baahan keliya meesha ka boodid waad fanta soomaan haswaaleen tartiib orod korna isku xad tabro soo marto meeshka waa meeshka booda waa qasab hadii kale boolis ma noqonaysa halkan aniga meeshaas sida haddaan ka boodo waa jabaya aniga hadhowna qof i aroosaysa man haddaan jaba aniga ka waran naag jabayaan rabo dimalahan aniga ay koros aan busraadi saqajana madaxweyne fiiri waxa sameeysan adiga ii fuutino ani iska kay dhaaf dadka kale le meesha saar maskax ma haya aniga aan ku boodo waan ka khalin lahaa laakiin kama khalin karo hadda waa muhiim inaad boodida meesha adiga laakiin adiga dartaa wax kasta waan u suubi karaa waana boodaya adiga sharaftaada ayaan ilaalinaya aniga waxay haatay warka badan yaray waa boodaysa hadii aad boodaysa maahan finish ah tribiga waa inaad ka boodaa waa tababarka waa inaad boodaad hadii kale soomahan hawada ayaad ka baxaysaa meesha ma sii joogaysid ciidanna ma sii ihaanis qofta qofka ciidanka waxa loo baahan inuu qof tababaran hadii kale soomahan hey ina mari kadaala soo joogay soo bood inta ku warkayo soo bood waan gacan gala aniga yaa badbaadinaya beelo waayabe waa cabsanaya laakiin waa beelo waan ka helay lir qabow ayaa taale meeshaan waan ka helay asxaaba igu soo daysada kaalay imaada meeshaan isku daya inaad imaataan tartiib laqdiga bootaleha iyo hay tali ka waran soo qatar mahay aniga maxamed arinkaaga laakiin sidee kusoo booda caadan badida ka waro laagsanaada geesinimo adiga ayaa ka arkay koob labo saddex see camal caloolooyinka waa booditiin waa soo bootay see waxu jira meelaha alora derbiga yaraa umaleynaya أعوذ بالله سعمل أمر وأنا صغر ماما واسو دالي سعمل شلقا هواي الدربي عن مديسين نو قاعدين واسو دميلة وانا بس أنا نفتي دف يا هي يا وقت كده يا سعمل يا وين واسو قلبي هاي والله قاعد على شنكر بح هاي بح دفن هاي يديس يا زعادن ها أمر هاي هلو نكسن أيوة intaan shaqadan booliska ma naga diisaanimayo shaqo kale aan iska leeyahay booliska shaqada ugu fiican waa aniga waan daalayaaqayo sheekada inaad soo gabagabaysanayaan jeclahay
dhegeyso annaga hawl kale ma qaban karna miya oo hawsha anaga dalkeena ayaan difaacaynaa laakiin tababarkaan ku caajisnaa ceeb maahan marka haye sidee tihiin aawo xaaladiina meeshaan ayaad keligin caweynaysanan may kaal saaxib bixin adiga maxay tahay tan waaba naga ridi rabtaaye warkeedaan may joog anaa la hadlaay karisma haye sidee tahay xaaladaada waa fiicanna meesha aniga adiga ayaan kaa taageersana inta kale bacyaal waay moogtahay waxa ay galaan ma lahan haye xaaladiina kabar waa baxay naga tag neeftaan ugu soo haye maxay dhahdeen anma ay wacdeen may saaxib aniga waa sii tegayaa bye waa kaa tegaya saaxiibow ralaha maya joog adiga qoftaan anaa la hadlaay isdeji adiga maxaa waay waxaad cabaysaan cawada ii sheega bal ها بابر ومعناها أبوذو كردينانو أودا لينونا له معناها هدا يسيسين كورا أنيقا تك أنا قني أنكو داي واتجابي كرتا دارتي أنيقا نوا تجابينا يا واحد عبيسان كانا عب أنا واضح سك إذا بهذا كده عرفت شو قاعد مركي كده عذار ولو حلو إيشك مذوبي ولو حلو واجو قال فالحمو واكن رار أقراد أيوة هي أفكيسة وهاكشنا واحد سنوية على دقاب دربيسة صاحبو أمس أديك ما هلك كان سيجارك إنه مقعدة الشيت وكحمان هاي فالحمو وين فيرها يلا ديك قمرك كان أقولها هاي أديك مرضى قمرك سيد اللعب ما بتقانيد بقى أنا أيا كافي عن أديك مرضى بيتنا هدد أفاريق سوق شتوك قراعة مرضى من أنا حي حمينا أقولها وأكو أجا أفاريق أيا تقشوانا كله صعبة هديك على سما شقايا كقمرة دقيا حكا هو dhibaatay keentay tan shabcuunka hoostiisa igu dhufataan ku dhahay haye ams adiga aniga waan ku taageersanahay saaxiibkii qaaliyaa tahay haye shuluqow feere weyne adigaan ayaa lagu tababarayaa sidaa u taalo iskuma jeedid miya horta habartaa badalka maxay kaa usoo badis qaab darooyo xunka adiga waa ku garaacayaa weliba calosha ayaan kuga dhisanaya haye kan kalena qaab daradiisa aniga waxaan rabaa saan u garaacayo xaafadiisa inaan burus ku geeyo tababaroo sheegaya kaala laakiin adiga waa ku jeclaa mogtahay mar hore ayaan kaa helay dadka dhan adiga ayaa ka fiican saaxiib fiican ayaa tahay waan kula jiraa saaxiib macaane waan kaa helay ha laakiin kuwan asxaan ma u hayo subaxda markay la tababaranayaan ama nacaba aniga shid waa dhacday bas هلا ورد سيبوبسي سو دخسا بدن بوشب خلاص سبي بوبسي دخسا وريا فيري ولا على الوين وكالي صوصا وريا هلا ورد نو وريا اسكت بتحن خش ولا باش لا وريا حرفان استاك وريا هاي واكنا واكد عزي waxaana tababar loo soo dirahaa ka waran kaali haye adiga okay ayaa tahay lambarka koowaad ayaad fuushaa بريمي ayaad qaadatay waad guuleysatay aniga ha okay ha qataran ha waad guuleysatay waad bax xabadka isaarhe maya iska bax hawl kale ayaa meegidi ameeshan maanta maxkamadda waxaa lagu saarayaa dambiilo weyn ee dilinin madaxa ee ciidamada dambaarista ka tirsan ninkaas ayaa maanta la soo wada maxkamadda ayaa la saarayaa bal aan aragno xaaladiisa jawiga maxkamadda sida ay tahay ciidamada booliska ayaa soo wada ninkaas waa nin halisa si xun ayuu u dilay ninkaas ninkaana nin wanaagsan maahan mudana ii waran isii warbixinta ugu dambeysay ninkan sidee lagu suubi karaa maanta ii sheeg warbixintiisii maanta hadda maxaa lagu kusuubi karaa iisheeg ninkaas sidii kusoo qabateen war adiga warbixisi waa maalintii kugu dambeeyey oo lagu tooganayo maxkamadda lagu saarayo maxaad ka hadli rabtaa ii sheeg وكاتب aniga waxaan kuu sheegay fiidiga lagu soo dhiibay intaad fiirsan kor aniga fiidiga aan hay fiirso adiga ayaa qancayo okay isa diib bana fiidiga ya maxay tahay waxa kan andaada
waan ka xunnahay sidaa gaartid adoo kaatay labadan video waa isku mid marna waa ninkan oo dilaya ninka ciidanka marna waa ninka ciidanka oo ninkan kala dilayay taasna way caddaynaysaa videoyaasha in laisku suubisan karo ninkan caddayn buuxda ninkan kuma hayo ama naf nool waxaan waa wax la suubiyo oo keliya waxna doonaa ninkan sharafta leh inuu sharaftiisa meel ugu dhaco taasna anaga kama ogolaanayno sababto waa ninkan waa nin sharaf leh waxaa loo baahan qofka bilaanin xuquuqdiis in la ilaaliyo ninkan booliiskana waxba meesha ku heroorade ma jirto waxyaabaan odil waa fadaadhuhi baan laisku soo ururiy aamus ayaan ku leeyahay caada qaata ayaa tahay waa laga yaabaa annaga booliiskeena inay gaajo u dhintaan marna ma laga yaaba in jeebkooda lagu buuxiyo ilaaluushii waxaan la doonaynin jaal xeer ilaaliye ninkan wuxuu ku hadlayo waa waxaan macquul galahayn mana doonay booliiska sharaftiisa inuu meel uga dhaco mana ka ogolaanayno waxaan ka yeelayna ma aha gaashaan la isdeji ma aha ninkan sharafta booliiska meel uga dhacay mad walba waxaa loo baahan yahay in booliiska caddayn buuxda ay keensadaan videona sideedaba waa wax la iska subsan karo ninkanna waa ganacsade caana oo la yaqaano videoganna ma ahan mid aan anaga ku qanci karno ama aan qof ku xukumi karno waxaa loo baahan yahay caddayn saxa in maxkamadda la keensado marka gaashaanle waxaan ku dhihi lahaa ninkaas caddayn buuxda ka keen waayahay jaal xeer ilaaliye wax yar fursad sii marka waxaan kaa doonayaa inaad ninkan caddayn buuxda ka keensato maadaama aad tihiin boolis hooshiina waa inaad gudataan video waxba kuma xukumi karno ninkanna waa ganacsade la yaqaan marka annaga maxkamadda okay ardayda dhegeysta dhigiina si fiican u furo tababarkaad ugu qaadan jirteen kan waa ku duwan yahay sababtoo waxaa loo baahan yahay qoryaan meesha inaad safka u dhigtaan kadibna aad meel walba toogataan ninka booliska waxaa macquul ah inuu tuug soo weero waa yeelaynaa teeda kale waxaa loo baahan yahay idinka inaad qoryaha qaadataan aad meesha toogataan meel walba ka dhammaystirnaadaan waa fahanteen soomaan haddana waxaa noo bilaabanaysa tababarkeena qaybta shiishka waxaa loo baahan nin walba inuu shiisho haddaba ninkii shiisha waa iska jiro xerada waan ka saaraya mana tababarayo waa fahanteen soomaan hala kala dib maxaa sugaysaan dhaqsada taliye kala iima waa ku baryayaa garabsi kama dheer waa jirtaa ma imaatay aniga ishak sidaan u ridayaa alxaasi warka badan yaray waxa taa qof ciidan wax loo baahan shiishka inuu yahay shiish dhameystiran ayaa soo qabso hadda aniga sidaan rab u ridi karaa ishak waa ku ridi kartaa maxay ku diiday adiga waxa taa qof bili aadan dadkan wadina waa bili aadan adiga waxba kama sareeyo marka wax loo baahan yahay xabad inaad qaadato meesha si fiican u siishid waa faan Soomaa baarka la dhacbash taxsan marka bulsi warka badan naga yaray waqtigan u socdo waqtigan lagu dheelay waa faan Soomaan mala yaani waqti u wayno qoriga haddaan xabadaha ka dhameeyo ama la ii qabsanaya aniga xabadana dirinta ayaan u ridayaa aniga ilaa weliga aniga xabad ma ridin haye maxaan suubi karaa ii sheeg he aniga ma kasaay sida loo sameeye ha alxaasi warka badan yaray xabadaha aabaa ma bixino waan ridayaa hadhow qof haddaan ku dhifto adiga isbitaalka geynaya aniga ma la ii qabanaya ku dhaha ilaa adiga si fiican waa xabado dheemi shahaadadin ma shaqaysana saad sii onno mise saldhigana ka baxaydi baasha si ayurigaso هي كان أول كي علوش من أول صغير هاي ولا يريد أن يقول عيشة حبذا دقها إيه حنون جنا يعني دقها سايدي حنون يعني يوري وركة بني يوري خارج خاط مثلا حبذا هديك الصومان وركة بحي وين صومان وادي دي بيسا كم دي ما شغال سويان كله وركة بني يعني يوري وقت أنا وعني فضلا وين فانت صومان أو ورتك على استيار سوى صابغ صاحب أنت جرت أي شك كواوي أنت جرت صاحب كالي قرب سيوك بريايا haddii aad maqasho wax dhagahaaga aan u fiicnayn waxaa loo baahan yahay inaad muusig ka gashato aad ka raaxaysato dhagahaagana markaas waa ay ku nabadgalaan waa mahadsan tahay qof wanaagsan ayaa tahay adiga وهو adiga kan waa maxay sheeg jibshe yaa iskala markii sheeg adiga yaa iskala maxaa waaye ana iskala intee ka keenta marka saaxiibtay soo siisay saaxiibtay soo ku soo sidada jira si isku sii jiray siisay alxasan uu didiyo dhamishin soo mugid yaa okay aniga gacanteeda ku haysto mujeedido ay isku qurux badan yahay calool weyn war degdeg hoona soo gaaray ciidamo boolis rag iyo dumar iskugu jira oo lagu tababarayo meel ayaa hadda waxaa la soo sheegay inaysan xabadna ka nooleen ee dadkaas xasuuq baan walaashay ii sheeg warbixinta ugu dambaysa ii sheeg sidee wuxuu jira meeshaan waxaa yaala meedad fara badan rag iyo dumar iskugu jira dadkaasna waa la baabiyey dadkii dilina lama yaqaano dadkaasna waxaa la sheegaya inay gobolkood dad caddayn haayo ay ku jiraan marka sheekadan waxaa tahay sheeko kaleeto oo dad kale ay ka dameeyaan ma burcadka ayaa baabi'isay mase ayaga ayaa
iskood isku dilayo sun ayaa badarka loogu daray lama kala yaqaana dadka waa kuwaan asxaana looma suubin baabaha ayaa laga siiyey waxaan ka sheegnana ma naqaano wixii caddaynoo soo baxnana gadaal ayaan ka arkeen hadda ayaa la ogaaday inaysan nooleen dadkana xasuuq ba'an ayaa loo geystay waxa asxaana nooma suubin warbixintii ugu dambaysa aan helnana waa warbixintaas gabadhaas ayaana noo soo gudbay wariyadeena marka wixii soo gudboonaada la arka gabadhan ayaa ka mid ahayd oo wiilkan ayaa ka mid ahaay dadkiina waa la baabi'iyey waxa saxaanan looma suubin warbixinta ugu dambaysay dadka ka dambeeyana waa la arkayaa hal qofna kama noola dadkaasna si xun ayaa loo baabi'iyey asxaanan looma suubin waad u jeedaan sida ay wax u jiraan waa kana aniga ayaa kuu wacay qabso furahan hay soo soco ilaa aniga baabuurkan adiga ayaa wadaay soo soco adinka iga jooga qabso furahan meeshaan fur sayelana maxay tahayna adigaa arkaayo wixii ku jira كريشما صاحب ما adiga kaale waan cilooday sidee wax ku gaareen maxaa dhacana waxaan arkay maxay tahay ii sheeg booliska waxaan booliska wax fiican ma dadkii idin waa la baabiyey intii yaa kugu soo xirana maxaase lagaa rabaa booliska ayaa igu soo xiray aniga asxaana mala ii suubin booliska intaad nooshahay asxaana u suubin dadkoo dhana dad fiican maaha booliska ya kaasaa ka mida kaas laftiisa hay aabbo aabbahe ha waa aabbahe aabbo maxaa dhacana naxariisa malaan dadka dhan waa la baabiyey aabbo sidee wax u jiraana ifaansiib maxay tahay gabadha aniga ayaa kuu sheegay wiilkaygii wax walba sidee u dhaceen maalin maalmaha ka mid ah qabsee waa kana mobilkan meeqa ayaad gadaysaan wixii diritid ku qaada 20 ilaa 30 akoonkana ku tuurhee okay waan qaadanayaa صاحبي adiga goorma ayaad naga soo tagtay suuq ayaad iska soo aadaysaa kaligaa maxaa kugu dhacay ii sheeg maanta maxaad la fikiraysaa waxabana naadiga fiin fikirka iska dhaaf soo bax isdiyaar soo libiso magaalada ayaan aadaynaa soo soco soo bax saaxiibana raac soo baxe meel ma u socda aniga war fiir meesha haddaa iska fadhida wax ma ku imaahayaan maya gabartay ma soo baxdido meeshaan waxaa ka dhacay dil halisa sida loo galay ninkaasna si xun ayaa loo galay ilaa ay haddana caddeen laguma haayo ninkaas dadkii dilay madal noo sheeg sidee wax loo gaarsiiyey yaa dili ninkan yaa dili ninkan dilkiisa yaa ka dambeey ma idin caddayn karno ninkey sidaan ayaa loo galay cadaaladda ayuu u shaqaynayay bal maxaad xaqiina sidiisa ugu baabi'isaan si xun ayaad u gasheen haddaad booliskiina tihiin ninkeyga maxaad u dishaan sidaan maxaad ii gasheen gurigeyga mugda ayaad ka dhigteen gurigeyga ifaaye maxaad igu subiseen asaay ayaad ii saariseen weligeyni maxaad firanay intaan noloshayda joogo si xun ayaad ii gasheen inqaabtaadi marsiiseen guryihiina ayaad ka arkaysaan
bal sida loo dilay ninkeyga muxuu ka jawaabsaday dadka ii sheeg mudane sidee u jiraan ila hadal mudane maxaa loo maqan tahay yaa dilay ninkan yaa si ka dambeeya maxaan is leedahay caddeyn ma lagu hayaa waxaan idinka codsanaynaa run ahaantii shacabka dadweynaha meel walba ay ku nool yihiin lambaradayna way yaqaanaan booliska waa 3907 intaas ha inoogu soo hagaajiyaan waa idin baryaynaa cid alla ciddii caddeyn ka hayso marxuumkan dhinti ay u shaqaynayaan dalka iyo dadka waa idin baryaynaa intaas naga saacida idinkana marka cid alla ciddii caddeynta haysana waxaa idinka codsanaynaa sida ugu dhaqsi ilkaaliya sida ay soo dhacay iya igaraan loqda journalistiyaalkiina waa idin soo laabanaya later edit later hadda ku gudiyo hadda ka baran bal waxa ku soo weeraray waa boolis bambayna ku soo dhowow uga tuuga karaa dhinacaan mayna suuqas صاحب اقرا له عن كادونيا اسبوع كور يا دي بي سي وغير تدبع لبتي ولا تلتلم كلا شهر أنا كفر صاحب قفت تصوير كاس في الوقت عشان ايش انا مسوي ياي اوه لو بجقوا موت صار صاحب اي ما كدعنا ودحوة واجرة صعدة maxaan suubinaa saaxiib ma kuu dhammaatay waa inaan ka carabaa meesha intee ku badbaadi gaari gaariga gadaal ka soo fog banjaaqda naga cararin kaale shaatiga xataa waa siibtay diyaar qofta soo qaban kuleeniyo orod badana maxay soo cunto waayde taliya iga soo gaar tuuga ayaa i bursanayso markaas kadib aniga ayaa u tegey waxaana gacanta ka saaray isbitoor shabangi qoftaas ammaankeeda inaad sugid ayaa lagaga baahan qoftan waa isbitoor shabangi adiga ayay ammaankaaga sugaysaa okay gabadhan waa gabadhii caddeynteeda soo maha waxaan ku leeyahay gabadhan waa gabadhii aan kaala hadlaayay run ahaantii burcadda
oo ayada jilajilax ayaan uga jeedaa waxaan rabaa inaan tababaro sidee u tababaraysaa qofkan caddayn ayaa looga baahan yahay waana qof shacabe amnigiisa inaan si fiican u sugta ayaa loo baahan yahay isbitaal Shivangii hawshan adiga ayaan kugu wareejiyey waxaan u baahan For more interesting movies, visit mysomali.com. waan qabanayaa waxaan rabaa naag adag ee dalka iyo dadka u dooda inay noqoto boolis ayaa laga dhigayaa had saacadan laga bilaabo tababar ayay qaadanaysaa waxaan rabaa inay gabar adag ka soo noqon baxdo waan ogolahay wax kasta diyaar ayaan u ahay inaan tababar ka qaato haddaad diyaar u tahay annagana diyaar ayaan u nahay nafsadaada inaan badbaadino caddayntana adiga ayay gacantaada ku jirtaa qof laga gardaran yahay ama si xaqdaraa loo dilana adiga ma fiirsan kartid marka waa inaad okay wax kasta waan ogolahay oo hadda afartay saaxiib waalidila ayadoo kaliya keenool weliba waa ayadana si khatar ayaa loo raadinayaa hadday burcad gacanta ku dhigaanna cadcad ayay u jarjarayaan wiilkayga la soco midaas adiga anigana sidaas darteeda ayaan halkan u imaaday midaas la soco wiilkaygiiyo amnigeeda ayaan sugaynaa mahayna khatar kale ma jirto badbaadiya maxay tahay waxay u raadsanayaan gabadhan fiir aniga wax kaa dhaadhacsiina doqonnimada dhaaf gabadhan adiga amnigeeda sugu karaa adigana badbaadi karaa aniga ma suubi kari maxaan suubinayaa aniga arrintan waa igu culus tahay markhaatina ma furi kara aniga iga joojiya fiiri gabadhan wax walba adiga ayaa ka keeni karo iga jooji ma suubi kara aniga mudane iga jooji waan diiday fiiri gabadhan adeeg ayay ii keentay anigana mii anfacayso waxaan rabaa inaad adiga iiga keentay soco gabadheedii dhegayso dalkaaga iyo dadkaaga ayaa loo baahan yahay inaad adeeg ku muujiso miya sheekaa keentay nafteeda baxar ma geli kartid diyaarna uma ihi aniga bashad qoftan aniga ayaa caddaynta ka soo saaraya wiilkaygii sidee u hadlaysa si ani jaanis maya aniga ayaa ka soo saaraya qoftan qof wax laga soo saari kara la hadlayaa aniga ay u kalsoonaa maya wiilkaygii kaadi maya way israacayaan ayaga ayaa is soo fahmaya gabadhaana wiilkan ayaan u sheegay wax walba socowad okay kan adiga maya waxay samayn doonaan naas soo bax adiga aniga ayaa kula jira waxba ha cabsan ma ujeedaa canugan waqtiga ayaa ka lumay adigana waxaad doonaysaa maya wiilkaaga kalsooni ku qab wax kastana wuu soo dhammaynayaa sheekadaana u daa asaga waa nin raga u dhalinyaraa aan aragno doqonnimada dhaaf isdeji adiga maahan inaad ilmayso waan cabsanayaa aniga inaad ilmaysana looma baahno ya कुछ कुछ होने लगा
देखो मेरे जानम दिलकश एक नजारा बहके बहके मौसम में दे मुझे सहारा बहका है दिल तेरा है जाना छुपा लो आंचल में तुझे मेरे सुन ले सारा जहां मैंने तुझको चुना प्यार भरे एक सपने को हमने मिलके बुना तूने मुझे जो ही छू दिल में कुछ होने लगा दिल ने वफा की वादे की एक दूसरे की हम हो साथ कभी ना छूटे कितने भी कर कोई से कोई अपने कसम ना टूटे नाजुक है ये रिश्ता दिल का सच्चा ये किस्सा दिल का प्यार वफा का तोहफा हूँ तुमको नजर कर दे तुझ पे निछावर दिल पर जान जिगर कर दे तूने मुझे जो ही छू दिल में कुछ होने लगा दिल ने वफा की वादे की एक दूसरे की हम हो मैंने तुझे छुआ दिल में कुछ होने लगा दिल ने वफा के वादे की कि तुम चलते हो waan ogolahay wax walba aniga ya oo sidee u hadlaysaa maxay ku hadlaysaa haddeertan waxay dhihisay awood meliyi wax uma qaban karee wiilkaygii arrintan ma iga hubtaa mise way igu cayaaraysaa gabadhan adiga iska daa yaa sidaan hore kuugu sheegay dadkan wax walbo hadday israacaan inay soo dhammaynayaan aniga hore ayaanu u ogaay wiilkaygana geestinimadaas ayaan ku ogaay inuu gabadhaan cabsida ka soo baabi'inaayo si wanaagsanna sax soo soco haddana ha sheekaystaane naga soo wad maxaa kugu dhacay adiga dhallinyarada ha kaa raacaystaa ka soo soco okay sii baashaana baster maxaad ku hadlaysaa yay tahay gabadha caddaynta naga haysa ma ii sheegi kartiin idinka maxaad ku hadlaysin gabar ciidan ka tirsan waayo ciidana fideoga duubtay oo booliiska u gudbisay anakan ilaa hadda waa laanaha maxay u nooshahay mudane unuka aydaa aniga waryaay dhegaysta manyacda aad meesha ku haysin aniga ma doonaya gabadhaas meedkeeda ayaan u baahanahay sida ugu dhaqsiyaha badan haddii kaleenta waad ogtihiin waxaan samaynayo mar haddii aan xanaaqo mudane markoole jaanisan sii anakaa raadiyeena janis maa ku siiyaa kalabiyow maxaad ku hadlaysaa bidaartaada meesha ay igu soo weyn tahay mudane aamus waxaan fiirinayna male naga taga waryaa bidaar weyne sawirka adlee fiiri mago unuka sawiradaan dhan adleen ku kayna fiirso beellaa tahay madaxan bejiyaha u eg maskaxda ku hoos jirto aad ayay ii qancisa run ahaantii waanan u baahnaa sawiradan ma doonayo laakiin waxaan u baahanahay qoftii ayadoo socoto inaad ii keentid maahayna sawirkeeda inaa halkaa ii soo saarta maaha bidaar weyne qanji kukuus haye adigane meeshan ayaad dhabarka ii haysataa soo maaha may waa diya dhabar qofta aniga qorshahayga doonaysa inay soo hor istaagto waa midda la wareegaysa caddeynta waa middan soo maaha waxaan idinkaga baahanahay si aysan mar damba caddeyn iska dhaafay markhaati damba xataa aysan u gelin maaragta in lagu sameeyaan u baahanahay qoftaan nin aloo noqdaan ku dhahay nin la-aana haysoo u jeedaa kowdhe hay aniga waan iska almiteynaya waxaan u baahanahay in si deg dega meeshaan layga saaro taliyahana waktiga ayuu iska luminayaa
marka waa inaad si degdeg igu soo gaartaan hadalkaas dhegtaaba igu nyocday kowdhe sida ugu dhaqsiyaha badan waad ooga baxaysaa meesha waxaana kaa doonayaa aniga dartaada si aan kuu soo deeyay darteeda wax walbaan u samaynayaa bambaayoo dhan inay u gariirta ayaan ku tusayaa booliskana ayagoo calaacalaayo inay iigu imaadaan fadhigayga ay weliba adiga ii kaa keenaan askariga xunka ahaa ma ku dhow yahay bal ii sheeg adiga hadeertaan waxaan malaynayaa in waqtilxaadirkan oo igu soo wajahan yahay balse waxaan rabaa inaad meeshaan si degdega iiga saartaan yaa ku jira halkan iga daa nakeena idinka saaxib maxaad la amustay haye ma waxaad doonaysaan inaad aniga i garaacdaan joog adiga ma waxaad moodeen inaan aniga garaacista ka baqaayana ama ushiina ay wax iga tarto aamus basir kiib wasaq askariga xumaa waxaa isku dayay inuu sirta iga soo saaro waanu iga soo saari waa idinkana waa inaad si degdega halkan iiga saartaan ma doonayo inaan meeshan kusii jiro haddii kale garaacista ay igu wadaan waxaa laga yaabaa inaan sirtoo dhan u sheego mana doonayo inay sir gacantayda ama afkayga ay ka baxdo iga tagba dhididkaan iska tirtay maxaa kugu dhacane yaa hadlin adim yaa bidaar saaxiibow hal mar leen hadli wax jugta liigu dhigi laf xaartadu ma noolaan ku dhahay andhan sidii tumaa bareelaati ay dhigeen idinka basoole arrimahayga aniga waad xalin weydeen walaalkayna xabsiga ayaa lagu jabdayay Soomaaliya hadda ka hor dhibaato dhacday ayaa idinkaga sheekeynayaa walaalkay waa midaan aad u jeclahay gabdhihiina u mariyay dadkan cusbada maxaa noo mariya markiina tuntimaada noo naxariisay mudane dadkaanana yaaqay mana dhaafsado yaaqay waa ku joogeen cusbada way xanuunaysaa way xabuubaysaa mudane tumiilaa sanaan kuu shaqeeyahay mudane aad maxaa waa xaasidnimadan waxaan kaa doonaya waxay tahay walaalkay ninkii wax gaarsiiya aniga marnaba ma sii daayo hadda ka hor waxaa dhacday ninbaa igu soo eedeeyey dembigaasna daqiiqad gudaheeda walaalkay ayaa iga xaliyey maanta marka dhibkiisa sideen ku xalin waaya aniga hey waryaa maxaa ka haysiin meesha wariyey ii sheega shanabkoon bilow
waa guulaystay abow waa guulaystay gabadhina haddeertaan ayaa la ii keenayaa waxyar kadib waxaan jeclahay inay gurigayga imaado sida ugu dhaqsiyaha badanna aan caddayntii ooga dhiga waaba tanaaba wariyaa biyo keena soo dhaweeya gabadhan haye soo dhawow gabadheydii ku soo dhawow gurigayga waaye waa ku salaamay aabe walahi waa mudan raajaa iyo shaqaalihiisa guriga qurux ayuu ka batay waanaan ka helay gurigan quruxdiisa waaba ammaantay soomaha iskankii idinka iska taga yaray ku wareeji dadkan lacagtooda waa sii baxni mudane gurigan intaan rabo ma ku noolaan karaa waan ka helay aniga ku noolaan kartaa maahine aad iyo aad ayuu u weyn yahay gurigan dad sharaf la ayaa degan moogtahay beella waaye waan ka helay saa'id ayaan og helay fadhiiso gabadheedii guriga waa gurigaaga yaqi hadalay imaadi ciyoob warley unu bilawdi bay unuka adiga warkaas maxaa kugu jiraa manabadido yaqi maxaa kugu jiraa maxaa waay us hornowad beelo soo fadhiisa kaale aabe kaale aabahay ma meesha taagnaanay soo fadhiisa aabe macaani kaale ya qoota miya inaan cuni rabo warba uma haysid aabe ayaan ku qoslayaa adiga inaan ku laalaabi rabo adiga dhanba lama socotid miya gebigaagaba aan rabo inaan ku laqo runtii aniga qalbigaad iiga taagan tahay runtii rafaad badan ayaan kuu maray sidaan adiga ku geeli lahaa baahiyaa ihayso casho ii keena waxaa cuna ayaan rabaa ya waryaa maxaad la taagantihiin gabadhan casho u keena sida ugu dhaqsaa ya ayo nuuc cabitaan hambeegar nuuc kasta ii keena aniga wax aan dhaafaayo ma jirta aniga wax kasta waan cunaaya aniga guri lacag la ayaan joogaa ilaa anige wax kasta wixii laga kariyo dadka taajiriinta wax loo kariyo ayaan rabaa aniga okay soo lagu dhuubsatay waa runteeda u keena gabadha waxa idinka ma ka bixinaya lacagta waryaa hortaa shaqaysta may hoo qabso sii baashaal gabadheedii waan kuu soo laabanayaa waryaa idinka may maqlaysaan ciidankiinan gabadhan haddii ay halkan ka tagto waxaad ogaanaysaan idinkana inaad noloshiina weynaysaan anna ay u dhammaatay sharafteedii iyo karaamadeeda haddaba waa aabe kaale inaan kula hadlaya rabaa aabe maya adiga ayaan kaa sheekeynaynay macnaha haye gabar kaleete ayaan ka sheekeynaynay gabaraan u guuriyaan rabaa wiilkayga aabe aniga igu dar aniga ayaa diyaara sheekee wax kastana waa kuu qabanayaa beella waaye qorshahaan u degay laakiin lacag badan aa rabaa inaan ku siiyo haddii aad adiga iga ogolaanaysid xagga iyo dhan walbaba aan kuu hago haddii aad iga aqbalaysid gabadheedii qalbigaad iiga taala aniga waa loo begay hooshas aniga ayaa kuu qabanaya waan filaya inaa ii qabanaysa awalba qof kalenta kama diyaar ayaan waahay aniga wax kastana waan qabanayaa aniga guriga waa gurigaa ha aabe waad baashaali kartaa sidaa doontidna waa u dhaqmi kartaa okay aabe taliya okay sii soco okay wax kasta ayaan suubinayaa soo bax waa inaa hadalkayga si fiican u maqashaan sis wax u jiraa naagahan beriig intii u soo waday ii sheegbe mudaaharaadna way qabaan kulligoodana madaxyay iska gishteen socda wariyaa maxaa u fadhiisiin meesha kutaba bidaartii baan ku dhaartay waxaad meesha u fadhiisiin qalad waaye laakiin anigana waa iga badan yihiin kuwan inaan fadhiista beemaahine sheeko kaleeto ma kasoo warayso boor weyn bay wataa haye wax ii sheeg adiga maxaa meesha u fadhiisiin waa ay soo aruursateen sheegan ku dhahay maxaad ku hadlaysaa adiga beerkan kaa garaacan ku dhahay daqayho ya anu dhashay wadaheedina maku inkiray ani igaar wax walba waa okay wax walbana sida loo baahnaa ayay u dhammaanayaan mudane haye maxaa banaankaa la fadhiyaa ya soo gala xuquuqda aadaha ayaad u doodin wayna ogahaye soo gala gudaha soo gudba xaqayni ka soo dhacsada ninkaan soo gudba dumarka ayuu ku dheelaa ninkaana waan soo garaacayna on bushkaarayhaynahay soo garaac soo gala soo gala haye maxay tahay foodan maxaa kuu waardiye aaway maxay tahay foodan maxaad iigu soo hor fadhiisatiin haye
ku nooleed yaa maxaad iiga dheeraatay iska aamus annaga ayaa waajibkiisa marsiinayna maanta xaquuqda dumarka ninka ku waryaa waa laga fadlaysaa shaqeeya cunugan adiga ayaa dhala naagtaana adiga ayaa ku inkiray nin wanaagsan matid doqon baa tahay oo doqon yahow dee wax isku fal wax wanaagsan maahide cunugaaga maa la inkiraa adiga baa dhalay waraamus wixiina waa xaddaaf annaga ayaad xafiiskeena intaan noogu timaadaan haddan nagu aflagaadeynaysaan wax loo dulqaadan kara maaha baxa ayaadan leeyahay kulligiina adiga fiiri ma bixi kartid cunugaana adiga ayaa dhalay sharciga ayaa wax kaa qabanaya wiilkaana adiga ayaa dhalay asaga ayaa dhalay meel hala saaro yaa aniga haddaan dhalay maxaa caddayn waysid yaa bixi okiyaalka dictore dad badan waa joogaan meeshaan aan ku weydiiyey dadkan badan maxay joogaan yaase la baaraa aan dabagediya macnaha isma dhali gabartaan yar isaacadaan i dhalow iyo cunugaan yaraa hay odaygaan waa yeelka ah aan fiiriya abo waa yeel waa lisdhaawaan dheelaaya da wejigiis fiiriyaan ku dhaha wejigaasaan dheh aan sawirka qaadaba yur haa wejigiis waa isku egyihiin qoraan ku dhahay indhahaasaan dheh indhaha itusaan ku dhahay kala qaad indhaha haa indhaha waa isku egyihiin qor haa hey dhinaca naxdintan waa kasiman yihiin qor yaa aan fiiriyaba alaabaha hoose abo alaabihiisna kan amaya ama alaabihiisa u yaryihiinaan ku dhahay ii qor iidana yaa maxaad ku hadlaysaa waryaa aduu taliso kaalean ku dhahay cunugaan markiin baari odaygaana dhalay baaritaankana okey waan ku dhahay usugaan dhalay yur cid kale ma dhalin cunugaan dhiiggiis iyo dhiigga ninkaan isku mid waaye baaritaanka waryaa hooy iska jiraan ku dhahay dee ani mar kale ilaashid wax kala ay arkay cunugaan kan warqadda waa idin fahmi waaye kowdhaha waa idin soo laabanaa waxyar bal iga raali noqda waaba iga wareeriyin kuwaan iga tag maskaxda dhanayba iga cuneenba way baxeenaa u malayna iyaa aa wardiyaashii aa shaqaaley maxaad haysaan kalxanta yaa meel nooma leh waryaada yaa sidan idin galay waa nala shukuli Bye. Hello, soo hadal. adigu aniga waad igu shaqaysanaysaa adigoo banaanka jooga ayaad awood u lahayn inaad aniga inta iga bixiso anigana adiga ayaan ku sugayaa ciidankanna wax walba ayay igu sameeyeen aniga shaqada adiga ayaa ii diray oo yidhi ninkaas soo dil waana soo dilay aniga oo dembiga leh inta ayaan ku jiraa adiga oo dembi la'aanana banaanka ayaad jirtaa taasina waan la yaabanahay ninka dilka soo dil idhahana waa adiga anigana maxaan u xiranahay waxaan kaa doonayaa in si degdega halkan aad geysayso booto badan looma baahna waxaan doonayaa hadalkayga inaad si fiican u dhegaysatid aniga markii aan hadlo waxaan doonayaa 2 jeer inay dadka fahmaan hal keliya markaan ku hadlo anigaa wax kala kaa dhigay howl ayaan kuu dirsaday hooshii ayaad ii qabatay dabadeetana waxaad doonaysaa aniga inaad i cabsiisid ogow adiga inta aad jirto in la eg inaan aniga jiro waan ogahay laakiin waxaad moogtaa aniga ha ku fikirin inaad aniga marnaba ila fiidsato waxaad tahay ninkii shalay For more interesting movies, visit mysomali.com. ma fahantay ayaan ku dhahay ogow waqtigaaga wuu dhammaaday saaxib waxaan doonayaa maanta wixii ka bilowday inaan adiga maskaxda ka wada dagaalanno intii hore been ayay ahayd raajaa arrimihiisoo idil haddeertaan ayaad arki doontaa warka waa fahantayaan u malaynayaa wixii saaxiibtinimaha halkaas noo dhig maanta wixii ka bilowda cadowtinimadeeda rasmiga ayaad arkaysaa iyo wejigii cusbaa Buster! Yeah, se vaya.
mudane waa kuu imaan maxaan kuu qabeynaa ninka xabsiga ku jira ayaan u baahanahay isla bartiisa inaad ku dishaan waa maadsantaa waa baxnay kaale idinka dhegeysta hadalkayga waa inaad baxdaan oo dubi aadan feelka inaad iiga keentaan sida ugu dhaqsiyaha badan mana doonaya meel kale inaad martaan yaa laakiin mudane unuku dubaay maxaa ku aadaynaane tikiti wax ma layska rabo meesha wax lagu aado ma la rabo marka saan yeeleyna anaka waxba ma haysane haa mudane waxa waaye unuka xoogaa انت وسعنا صاحب ما هو انا قلت كان دبا جو adiga isdeji dadkan haddii ay fahmaan waa nala qabanayaan labadeennaba hadalka badan yaray ku birima inta ku leehada meeshaan dalcadda aniga waan ka cabsanayaa amaan dhacaan weligay adiga gasho yaan lagu arkin waa cabsanayaa aniga yaa halo haa may maqlaysaan jidka labaad istaag gabrey iska qaad wejiga si aan kugu arko dhaqso yaa soo ma tiid gabadhii caddaanta waday soo ma tiid adiga gabadhii caddaynta noqon lahayd aray mudanow waxa waaye gabartii waa la hayaa micnahaaga wiilkaagaasa la socdo see yeelnaa xira labadoodaba xer ayaan ku dhahay labadooda कमिश्नर का बेटा है डोंट शूट yaa waa kuwan garab ku siinaya adiga yaa waa ii sheeg kuwani waa saaxiibaday mar walibana way garab taagan yihiin beela saaxiib fiican aa qabtaa हे भगवान halo haya adiga waxaad isku dayda inaad aniga idisho dadka aad ii soo dirtay ayagoo mid ah ayay hoostaada yaalaan aniga waxaan kaashanayaa lacagtayda iyo kartida aan aniga leeyahay ciidanka booliska ahna waxaan u degay aqli cusub waxa ay wateen qof aniga ii eg adiguna waxaad isku dayaysaa inaad aniga nafta i dhaafiso adiga ayaa hadda uu gabalkaaga dhacay
waqti dhowna waxaan ku tusin doonaa tabarta aan aniga leeyahay iyo awooddayda waxaad moogtahay aniga oo ku soo weeraray in ay dhaanto in ay duufaanku marto waqti dhowna waxaad igu arki doontaa indhahaaga qadarka yar ee aan kaa maqanahay oo keliya ayay nolosha kuu macaan tahay booliska arrimahayna ayay faraha la soo galeen adna waxaan kaa doonayaa luuq walba inaad u istaagtid aad ku noqotid laf dhuun gashay warye lanka ma joogta adiga waa joogaa adiga adiga ma joogta waa joogaa ninka xiga ma joogta adiga meeshii waa ku jiraa ilaa iyo hadda meeshaan maan ku jiraynaa sheekadan goormee ayay soo dhammaanaysaa anaga sidan inaan meeshaan u joogno ma ahan mugdigan iftiin ayaan u baahannahay ninkan dadka dilaayo goormee loo dhammaynaya duurkan waan dhibsadaa aniga nolol qurux badan ayaa ku noolaay shalay waqti dhow waa ay dhammaanaysaa adigana isdeji intaan aniga kuula jirana wax dhibaataa ma arkaysa जो तूने चाहा पर तेरी समझ न आया मेरे यकीन तू कर ले जानम ये दिल तुझ पे आया चांदनी ने सिंगार किया तो चांद हुआ है मध्यम सूरज की किरणें भी बन गई इस सिंगार की हमदम तुम तनन दीना तुम तनन किरणन दीना तुम तनन दीना तुम तनन किरणन दीना कलाकार हूँ चित्रकार हूँ कम तुम बेबे कम मन चला हूँ मैं चंचल है तू देख तुझ में कितना दम मुझे न आए नाच न गाना why don't you teach me baby धीरे धीरे तू पास में आके why can't you touch me baby यारी दीवानी जिद ना कर तू बिना बजेगा मस्ती और मदहोश का आलम अब तो छाने दे दो तुम pani sa ga ga na pani sa ri ri pani sa ga ga sa ri 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 sa ri ba ba ga कलाकार हूँ चित्रकार हूँ कम तुम बेबे कम मन चला हूँ मैं चंचल है तू देख तुझ में कितना दम
प्यार नहीं है तुझसे मुझको हाउ कैन कन्विंस माय सन अगर तुझको है प्यार की चाहत प्यार की रस्में सीखा प्यार की रस्में आ गई मुझको मेरी वफाएं अब तुम देखो पनी सगा गा गा पनी सरी रे रे पनी सगा गा सरी रे मेरी सरी पमा खजा कलाकार हूँ चित्रकार हूँ कम तुम बेबे कम 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 मंचला हूँ मैं चंचल है तू देखूं तुझे में कितना दम किया तूने मुझे दीवाना हाय कैसा है तू परवाना प्यार किया जो तूने चाहा पर तेरी समझ न आया मेरे यकीन तू कर ले जानम ये दिल तुझ पे आया चांदनी ने सिंगार किया तो चांद हुआ है मातम सूरज की किरणें भी बन गई इस सिंगार की हमदम runtii waxaa loo baahan yahay burcadda meesha laga filinaya mooye meel kale inaan ka galno diyaar ayaan waxaas baa kaa wadanaya run ahaantii aniga isma lahayn ninkan ayaa shaqada intan kuu qabanaya dhacay ii sheeg ma ku cajibiye aniga run ahaantii isma lahayn askarta dariiskooda lacag ayay ku iibsanayaan adiguna waxaa tahay nin wadaniya balse ma tihid ma u malaynayo nin askariya oo sidaada oo kale inuu heeradbaad ku nool yahay waxaadna tahay nin wadaniya dalkiisa iyo dadkiisa aad u anfacayo wax badanna u taray howlgallo fara badanna ku soo guulaystay laakiin aniga howlgalkayga ma ahan mid aad ku guulaysanaysid ama mid ku hirgalaya aniga inta aan ganacsado ahay oo hantida aan leeyahay lagama yaabo in aad gacanta igu dhigto ama howlgalkaygan aad soo afjarto aniga dad badan oo burcada ayaa ila shaqeeya ayaga ayaana wax igala qabta mana laga yaabo aamus ayaan ku leeyahay baasir ayaa tahay annaga ma taqaanaa waxaan nahay boolis ayaan nahay boolisna ma taqaanaa waa sharafta waddanka iyo noocyadaadoo kaleenta sida laamiyada loogu jido aniga intaad isu hor istaagtaad waxaad doonta isaga hadlaysaa laakiin carabkaaga markii aan tiirka ku geeyo oo sida xun lagu daldalo wejigayga si fiican u fiiri waxaad arki doontaa hore waad u aragtay askari sidaydoo kale shanabla ah laakiin ma arki doontid sida aan kula dhaqmi doono hawsha ma ii qabateen okay hay isbitoore ma ku guulaystay qorshaha maya weli waxbaa ii dhiman yaa isgaarayba hawsha hadda ayay bilow tahay adigana hadda ayuu filimka kuu bilowday
ii soo dejiye eygaygu dhalay maya aniga kuguma imaan inaad gacmaha kor u qaaddo ee waxaan kugu imaaday inaan gacan saaxiibtinimo kuu soo taago ee meelo saaxiibaysaa anigu waxaan ahay nin askariya oo adiga kula jira ciidankanoo idilna anigu waxaan ahay askari ciidankanna aniga ayay ila jiraan raaddaa kaalay qoftan annaga ayay naga mid tahay waana qofta kiisa caddayn rabto maya waxba ha ka cabsanin annaga ayay nala jirtaa wiilkaygii roogii howshaada qabso mudane xagga tagaan ku yidhi afkaa lagaa xidhaa warqad badasii waxaan doonayaa inaad qofka adiga aad u shaqayso aad wacdo oo wixii lacaga aniga aad igu soo wareejisay saaxiib lacagta wax weliba ayay kaa keentaa ee qofkaaga waco aniga lacagtaa liigu soo wareejiyo sidaas ayaad ku badbaadaysaa okay telefoon ii dhiib waa kana halo raja waa inaad si deg dega lacagta ku keentaa haye maxaa waay dadkan tirada badan iyo booliskan arrimahan isku xiran maxay tahay annaga ayay nala jiraan waa gruub cusub oo aniga ila shaqeeya booliskan oo dhanna dhankayga waay haya aabe sidee tahay soahe waa taasaa lacagtii waan keenay aniga aad keeni tiray waa kaasaa igu soo wareeji feelkane hay saaxib soo fiirsa lacagtaada استاغ كعب وديار halahan oo lacaga ma aniga ayaad igu tala gashay runtii waxaad tahay nin aad loola shaqayn karo lacagtana sideedaba qof waliba waa ay beddeshaa adiguna maanta waad badbaadaysaa oo aniga dhankaaga ah waxna ha ka cabsanin oo lacagtan isma dhaqaajin kartaan dhammaantiin anigu waxaan rabay inaan ninkan kale gacanta ku dhigo asaga keligiisa waxba nooma taraayo lacagtaana waxaan doonayaa in boolisku wax loogu qabto wax welibana waxaan doonayaa inay sidii la rabay ay u dhammaadaan ninkanna waa nin burcada lacagtaanoo idilna dadka ayuu ka qaatay iska jir socar mudan wiilkaygii orod meeshaan isaga tag arrintaana dhaba hay abu
kadib markii markhaatiya caddeedna aan aragnay ninkan waxaa ku caddaatay inuu dilkaasi ka dambeeyey asiga iyo dadkii la jidaba maxkamaddu waxay ku xukumaysaa xabsi daa'ina run ahaantii aniga isma lahayn booliska dalkan sidan ayuu u shaqaynayaa wiiltayda run ahaantii waxaad isoo xasuusistay waayo waxaan loo baahan yahay dalkaaga inaad wax u qabato waddani adigoo kale salaam baan kuu saaray intaad adiga nala jirtana waxba nagama halaabayaan oo adiga ayaana difaacaya abo maxaa la imaanaysaa ukaadi tan waa ilin farxadeed wiilkayga hamoodin ilin kale inay iga tahay xidigayga ama tishanaya tahay